markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal sida aan filaayo ka badbadis looma arki doono haddaan ku doodo maansadii shiiqsiga lahayd ee soomaalida lagu kuunyi jiray inay sii wis leedahay. taasna sida ila tahay waxaa wax laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay hoostiisa ku bulaali jirtay oo wax badani iska beddeleen, gaar ahaanna afkii oo xiisihii jeer loo qabay uu hoos u dhacay. sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa, wax walba oo isagu leeyahay ayaa la xumaada. markaas buu u jilcaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan. habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa. afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada, waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay. bulshaweynta qudheedu waxbana qofkaas kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadar ahaan u oggolaato inay u jabtay ciddii jeer iyada kor u eegi jirtay amaba uu loolanku ka dhexeeyey. markaas oo kalena waa marka bulshaweynta lagu malayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmi nafeedka lagu yaqaan, afka ingiriiskana self hatred loogu yeero. filimaayo soomaalidu inay heerkaas gaadhay, inkastoo ruuxii maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay u baylihinayso afkeeda oo weligeedba waxyaabaha isku xidha ugu weynaa, tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna dhaax baa ku tilmaanaa. haddii kolka aan nafnacayb jirin, maxaa kalood ku macnayn kartaa dukaanka ninka soomaaliyeed leeyahay oo soomaali keliyihii ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhejiyo? maxaa kalood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta soomaaliyeed furatay ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummaddooda intii ay ugu magac dari lahaayeen u quuri waayey, dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay? maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinayo intii loo bixin lahaa kuwa soomaaliyeed oo macnahooda la garanayo, sida suuban, samawada, sharma arke, kaaha, warsame guuleed iyo kuwa lamidka ah ee markay u yeerayso carruurta ayaydood ay kari karto. midda kale, qofku markuu dhasho magaca loo bixiyo ayay soomaalidu isugu yeeri jirtay. haddii ay ka soo hadhana ina hebel ayaa la odhan jireeye abuu hebel halkee buu naga soo galay? in la isugu yeero hebel aabbihiis maxaa loogu baahday? allaha u naxariistay cismaan yuusuf ayaa bartamihii 1950 wuxuu u soo joogay dhaqankaasi waagii uu soomaalida ku bilaabanayay. dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayay kulmeen nin uu ku dareemay inuu jeclaan lahaa inuu soomaalinimada ka xuub siibto, iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi karin. markaas buu ku yidhi, wax cirkaa madow kuu jira yaad u cirbataaglayne, adoo culay jirkaa u egyahaad carab ismoodaaye, caaq baa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaali. ku dhowaad 100 guub muddo hadda laga joogo, qab dhammaystiran ayaa soomaalida lagu yiqiin, inkasta oo dalkeeda uu gumaysigu ka wada talinayay. iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd. waxaad ku garataa halgankii gobonnimada dhallinyaradii u kacday ee 1943 SYL asaastay siduu afkoodu ula weynaa. markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af soomaaliga ugu xusayaan, meelmarintiisana ay isaga xil saarayaan.
qab bay lahaayeene waa isla dhallinyaradii 1949 dhidibada u aastay goosanka af soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horreeyey ee daryeelka afka loo abuuray. ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo, maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horreeya ee uu ku hadaaqayo, iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa. kii uu ku dhawaaqi kari waayana intay u saxdo ayay sidaasaa odhanay sidaas dheh ku odhan jirtay. hase ahaatee hooyada Soomaaliyeed maanta sideedii ma aha. nasiib darro maanta af Soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho. laakiinse taas lagama wada sinee. waxaa u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka carre erag u daraabay ee Yurub iyo Ameerika isa sii taagay, dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday. waxaa la yidhi carruurtooda inay af Soomaali kula hadlaan way ka hawoodaan. waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahoodu af Soomaaliga waxba ka aqoon. waxaa la yidhi waxay door bidaan carruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin. taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaas wax ka taqaan. ma haddii aysan wax ka aqoonbaa, markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye isma afgartaan, si hoose uma sheekaystaan, kalgacalka ka dhaxeeyaana ma sii ridnaado. hidda ahaan waalidka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto. ilaahuw caasi ha naga beerin ayay ku ducaystaan. taasina waxay suuroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin, marka ay ku wada hadlaan af Soomaaliga oo ah midka dhaqankaas xambaarsan ee laga baran karo. goor hore oo weli ay dhalaan yihiin ayay Soomaalidu carruurta ku anqarisaa inay waalidkood u dhaganuglaadaan, in aysan hadal ku soo celin, marnaba inaysan maya ku odhan, wax walba oo ay haystaan inay u huraan, iyaga oo aan ka burminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan. hase ahaatee talooyinka caynkaasa looma sheego carruuraha ku barbaara dalalka galbeed ee Soomaalida badani ay u darowday. waxaa kuwaas loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin, in aanay xaq gaara ku lahayn, inaysan dow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada carruurta u goonnida ah ee guurka iyo furiinku ay ka midka yihiin, in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay, hadday saboolaan iyo hadday gaboobaanba, in daryeelka aabba iyo hooyo aan warasada xil ka saarayn, hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal. dulucdu waxay tahay hooyada Soomaaliyeed ee carruur baari ah rajo ka qabtaa waa inay af Soomaali kula hadashaa. intaas keliyana ma ahee waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta mahmaahda leh, gabayada leh, sheekooyinka leh ee waalidka oo caasi lagu noqdo lagu ceebaynayo, baarinimadana lagu ammaanayo. haddii ay sidaas yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay carruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo, cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mid ah uu waa ku bariyo markii iyada iyo iyagu ay isa seegaan, gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.